waxaan dhihi karnaa laba wiil oo dhalinyaro ah oo Soomaaliyeed oo boqolaal kun oo qof iyo milyan iyo dheeraad ay ku xidhan yihiin dadka intaas lagana ay ugu xidhmeen waxay soo gudbinayaan in laga helay kusoo dhawaada barnaamijka xogta adduunka oo aynu markan ku taxaqaadi doono khilaafka u dhaxeeya labada youtuber ee kala ah Cumar Inshaar iyo sidoo kale Dirisale Cabdi ama Cabdirasaaq wiilka lagu magacaabo ee isna youtuberka ah haddaba waxaynu arrinkan u eegi doonaa si dhexdhexaada inagoo fiirinayna waxa la isku hayo oo aan ku dhex milmaynin ama aan dhinac la safaynaynin si cadaalad ayaynu u eegi doonaa umuuraha kusoo dhawaada barnaamijka subscribe share iyo like gaadhsiiya dhammaan asxaabta waayahay aan gudagalna barnaamijka haddaba labada youtuber waa Cumar Inshaar oo ogaansho maamula ama leh iyo sidoo kale Dirisale Cabdi oo ku magac dheer Dirisle sidoo kale magaciisu yahay Cabdirasaaq run ahaantii waxa aad iyo aad u cajiiba in dhalinyaradan ay dad aad u badan oo Soomaaliyeed ku xidhan yihiin wiilka lagu magacaabo Dirisale waxa ku xidhan 1 milyan in ka badan oo Soomaali ah run ahaantii taasi waxay u baahan tahay mas'uuliyad gaar ah sidoo kale Cumar Inshaar kama laadlaado kanaalka YouTube-ka ee ogaansho isagana waxa ku xidhan ku dhawaad 1 milyan dad ku dhow 800,000 ayaa kor loo dhaafay marka waxaan dhihi karnaa dhalinyaradan waxay dad badan ku kasbadeen waxay soo gudbinayaan runtii xaqiiqadu waa sidaas iyo dadaalka ay la yimaadeen bulshada dhexdeeda laakiin la kala badi orodun maaha ayay Soomaalidu ku maamahdaa bal haddaba aynu eegna waxa la isku hayo waxaynu eegaynaa qofka eedaysanaha waa kuma yaa eedaysana ah muxuuse ku eedaysan yahay run ahaantii sidaan horeba ka dhawaajinay mas'uuliyad weyn ayay u baahan tahay maamulidda 1 milyan oo qof oo Soomaali ah haddaba mas'uuliyadda ka saaran Dirisale Cabdi in lagu canaanto la dhaliilo waxaas oo dhanba bil'aadmiga oo dhan ay soo maraan laakiin khaladka uu galay maaha in khalad lagu saxo waana khalad wiilka lagu magacaabo Cumar Inshaar arrinka dhinaca uu kaga tagay ma ahan dhinac qurux badan ruuxaantii oo ah social media waxay ahayd inuu si bareefada ula hadlo una soo bandhigo waxyaabaha uu gocashada ka sheeganayo ee aansan u bogin waayo taas waxay keeni lahayd inaan la wada hadal muuqaal la soo duubin arrimo iyo waxyaabahan hawada la isku soo marmarin kadibna waxa imaan lahayd si simple oo dadku aan dareemin wax loo bedelo sida la rabo in bulshada Soomaaliyeed adeegaha loo yahay runtii adeega ayaa loo yahay labada youtuberba aanu aad waxaan u daawadaa kanaalka ogaansho laakiin dhinacan kale ee Dirisale waa mijaajala iyo anraade iyo sidoo kale reactiono arrimahaasna aad uma jeclaysta laakiin wiilkaas waxa jirtay mar uu samafalaha oo aad ula socday barnaamijyadiisa marka arrimahaas ayaan aad iyo aad u taageeri jiray oo ka daawan jiray marka qof walaalka ah Cumar Inshaar wuxuu yiri mar aan waraysi siiyay ayaan aad iyo aad uga qabameeyaa ama ka shaleeyaa markii dambana wuxuu yiri Dirisale waa walaalkeen markii waraysiga laga qaaday ee hore waagaas iyo haatan ba wax iska kay bedelay malahan sidaydii ayaan ahay laakiin taasi waa khalad weyn waayo markii hore sida uu hadlay iyo sidii dambe markii dambe uu hadlayba ismay lahayn marka ogaansho khaladka guud ee la saarayo waa ah in uu social media uu isagu markii ugu horreysay ku bilaabay isagoo isla dadka u bidhaami balse waxay ahayd in si bareefada uu la hadlo arrintana uu halkaas uga sheego ismaandhaaf ayaa jira ismaandhaafkaasna ma aha mid si weyn waxaana sii ballaarin karaa baraha bulshada ee kala duwan haddaba baraha bulshada ee Soomaalida ku kulanto mar walba waxaan maqli jirnay dad baa haysta maxay baa haysta muuqaal lagu soo share garanayo intaas oo video ayaa ku soo gaari jiray iyagoo TikToker iyo YouTuber wada haysta marka arrimahaas shaqo kuma lahayn ogaansho gaar ayuu ka ahaa waxaan is odhan jiray warbaahinta ugu muhiimsan sida turjumaada muuqaalada ajaanibta mataqaana aad si saameyn inoogu leh ama dhaqankeena islaamnimadeena waxyaabahaas oo dhan ku gadaaman aadna u bilaamin jiray waxyaabo fara badan oo dunida ku saabsan aad iyo aad ayaan ugu xidhanahay waana la socdaa mar walba waa inaan fahanno in ismaandhaafka iyo xaaladda uu ka sii darayo social media iyo muuqaalada la isugu soo jawaabayo haddaba ogaansha khaladka guud ee uu leeyahay ayaa ah inuu markii ugu horreysay isagu soo bandhigay oo bulshadiisa u bandhaami taas waa khalad isaga dusha loo saarayo balse Dirisale Cabdi waa inaan tan aan laabta ka saarnaa Dirisalow waxa kugu xidhan 1 milyan oo qof oo Soomaali ah dadka intaas leeg intaas soo qabsatay meel kuma soo xareysan waxaad soo gudbinaysay ay almost ka heleen
oo ay sidaas kugula soo xidheen amba ay kusoo subscribe gareeyeen haddaba mas-uuliyad ayaa kaa saaran dhaqankooda islaamnimadooda sharaftooda iyo ciddigooda run ahaantii waxaa muhiimka ayaa ah in la fahmo in dadka aad iyo aadka u daawada kanaalada ama markaa social media ay da-doodu ka hooseyso sodomeeyada haddaba run ahaantii analyticska youtube-ku ku tusi karaa dadka ka hooseeya da-dooda ee ku daawaday markaa muhiimad gaara inaad iska saarto oo aad iyo aad arrimaha aad markaa uga fiirsatahay waa muhiim waayo taas waxay keenaysaa in ay dadku kula falgalaan iyaga oo aan markaa isku day haba yaraatee aan samaynaynin ah in wixii aad samaysay oo la mid ah inay sameeyaan way dhacdaa dad fara badan waxay social media ka arkaan ay bulshadana si toos oo la dhex yimaadaan taasna waxaa ka dhalanaysa dhaqan xumo iyo markaa arrimo aan wanaagsanayn oo inooga yimaadaya ama inooga imanaya ajaanibta haddaba muhiimadda guud iyo si loo arrinkan aasan faraha looga saarin ayaa ah in si bareefada loo wada xidhiidho in si bareefada loo wada xidhiidho muuqaaladii la iska soo duubay oo dhanna hawada laga saaro markaa yacni arrimaha hoos loo dhigo mar walba bareefad lagu dhameeyo muhiim maaha in social media laisugu soo jawaabo waayo wax badan ayaa faraha ka baxaya sharaf dhac badanna way dhacaysaa oo aad yacni karaamo darro ah run ahaantii youtuber aan waa dhow daawanay ayaa waxaan xasuustaa oo ajaanib ah yacni dadka ha u fiirsan dadka kusoo jawaabaya sida kommentiyada iyo dad kale oo adiga kaa sheekaynaya ha u fiirsan abidka ayuu ka sheekaynayay oo ajaanib ah markaa taas waxay muhiimad gaara siinaysaa in mar walba bareefadka lagu dadaalo mar haddii soomaali la wada yahay dhaqan diin iyo markaa wax walba la wadaagayo waa la wada xidhiidhi karaa weliba si dhib yar si walaaltinimo ah walaalo ayayna dadka islaamka oo dhan yihiin taa mar walba waynu qof walba ogaadaa inta uu qofka islaam ka yahayba walaalo ayaa la yahay yacni sidaas waa ina cid walba u ogaataa cid kastoo aan ogeyn waa ina sidaas u ogaataa in la fogeeyo oo markaa faquuqu dhaco oo markaa nacayb la abuurana bil aadmiga ayaa qacan ku samays ah oo waxaa mataqaanaa samayn karaa oo asalkiisuba wax walba sameeya oo markaa dhibaatooyin fara badan faafiya marka qofka ay 1 milyan oo qof ku dhawaad ama ka badanba ay ku xiran yihiin mas-uuliyad intee laga ayaa saaran yacni waa inaad ogaataa inaad hogaamiye tahay oo kale hogaamiyena tahay oo kale waa inaad ogaataa dadka faraha badan ee kugu xidhan aad dhaqankooga iyo islaamnimadooda ilaalisaa muhiimaduna waa intaas ogaanshana ma ahayn marnaba inuu shaarica la soo istaago inuu markaa yacni arrimaha markii ugu horreysay saa soo bandhigo waxay ahayd in si bareefada arrinka loo galo waan ku soo celcelinaynaa aad iyo aad dhexaad ayaan ka nahay mar walba waxaan oo kale ama arrimahan oo kale marka muhiimaddan halkan soo fadhiisanayna ee ah inaan bildhaamino ama ka hadalno arrinkan ee nagu kalifaya ayaa ah dadkiina oo ah dad Soomaali ah labadan youtuber oo dad aad u badan ku xidhan yihiin sidoo kalena caan ah marka muhiimadda weyn ay leedahay in laga hadlo ayaa ah yacni in waxa khaldamay la toosiyo waxa la yidhi caanadaatay dibadeed la qabay marka in si bareefada loo wada xidhiidho arrimahaasna la dhameeyo yacni layskana ogaado yacni in dadka islaamka oo dhan ay muslimiin yihiin oo dadka islaamka ah ay walaala yihiin soomaalina aan ka siinahay tas af iyo dhaqan iyo wax walba yaqaananahay ta kalena midaan ku daray dhinaca iyo marka la eego dirsaale marnaba ma habboona yacni wax walba waa inaad ogaataa oo dhaqanka iyo sharafta iyo ciddiga ummaddan yacni saameyn ku leh inaadan usoo gudbin mas-uuliyad weyn ayaa kaa saaran dhinaca kale ogaansho lama baahna in laga badbadiyo oo la yidhaha dhinaca kada saas maaha laakiin sometime wax way khaldami karaan laakiin waa la sixi karaa haddaba bulshada Soomaaliyeed ee aadka u qiimaha badan qaayaha iyo sharafta badan karaamada badan yacni habla iyo wiilal bale dhaqankooga iyo sharaftooda islaamnimadoodan aadka ugu dhagan yacni waxaan ugu hambalyaynaynaa siday u ilaashadaan islaamnimadooda run ahaantii dadka Soomaaliyeed waa dad aad isku baraarujiya yacni iskana warqaba isna og haddii aad dhinaca iyo qurbaha hadid ayaa dareemi kartaa yacni Soomaalinimadu waxay tahay sidaas awgeed muhiimadda weyn ay leedahay in yacni mar walba bareefad lagu dhameeyo waa in yacni wax walba la iska kaashado ogaansho wuxuu sheegay inuu wiil hore oo maahir la yidhaha sidaan ka dhageystay muuqaalkiisa uu arrin noocaas oo kala hadlay kadibna uu wiilkaasi ka aqbalay sidaas si lamida maxaa diiday Cumrow inaad u sheegtid dirsaale cabdi oo tiraahid arrinka joojisay bareefada isna uu joojiyo yacni mar hore ayaa arrinka dhamaan lahayd yacni wax shaaric yimaada may noqoteen marnaba
guul badan ayaa idin rajaynayaa iyo inay arrimuhu dhammaadaan insha allah. dad badan ayaa inagu xidhan oo Soomaaliyeed idin jecel idin qiimeeya marka intaas ayaan marowdo aan kusoo gabagabaynaynaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.